مدرسة دار الحكمة ee magaala ganacsiyeedka degmada Togwajaale ee xuduudda u dhaxaysa Somaliland iyo Ethiopia ayaa munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay u qabatay ardayda sanad dugsiyeedka 2016 ilaa 2017 sidoo kalena guddoonsiisay shahaadooyin ardayda dhamaysatay xifdiga Quraanka Kariimka ah. Munaasabadani oo lagu qabtay barxadda weyn ee madrasada Darul Hikma ayaa waxaa halkaasi faahfaahin ka bixiyay maamulaha madrasada Darul Hikma ee degmada Togwajaale. madrasada soo soontiin waxaa la aasaasay sanadkii hore marka 2012 waqtigaas oo ku koob marka waxa ku bilownay arday aad iyo aad u kooban laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala na la garab galay oo ku bilownay hal galaas maantana ay maraso 4 galaas kii sharaadna qoraalkiisu oo socdo oo cusub yahay marka sida loo wada arko Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hadda iskale ardayduna marka dadaal badan bay muujiyeen إلهي سبحانه وتعالى وحنا نقول نمعي صدح نمعة وعدها شامرك أيرتاي واتور إلهي سبحانه وتعالى وحنا نقول نمعي إن أنا هلا أرضي آليات وفي عن وإلهي سبحانه وتعالى أولاد دوري إن حفظيان قرآنك أو تربية إلهي سبحانه وتعالى لقرب قري واتالله هذا وحانو إلهي سبحانه وتعالى نقول نمعي والدين آليات مركا وفي عن oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku manaystay inay noo hibeeyaan maal iyo nafba oo maalkoodana noogu deeqeen naftoodana noogu deeqeen oo heerkan la soo gaarsiiyay markaa madrasada tasaddexaadna Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu nimceeyay oo cidaasha ay yartahay macallimiin markaa isku duuban oo tayadii lahayd waxay barayeen markaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu nimceeyay saddexdaan nimcaan sanadka qura ku gaaneen ardayda noocaas soo saarno arday marka tiradu gaaraysa ilaa 4 arday oo 15 ka dhameeyay haatana maanta ku doorsiin doona waa tagaleesa marka waxay barbaarinta ubadka aad arkaysaan kuwii imika akhriye marka adkaarta salaada iyo kuwa soo socda indhiinu arki doonaan kulli Soomaalidu waxay tiraahdaa indhaha macalina laysa al-khabaru ka muayana qofku inuu joogo arrinka oo isagu indhiisa ku arko iyo in looga sheekeeyo maanta waxaanu soo aragnay waa kala duwantiin marka inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qadaray maanta indhooy ku arki doonaan hadalkayga aan sii badinayn waxaan waxa way ku dari doonaa oo kale in madrasadu marka galaas xaraysi ka jiro haatan laakiin qoraalkiisu istaagay galaaska cusub qoraalkiisa socda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciduu la kulmiyo cidaasna waa ka faa'iideysan doontaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hadle inagu kulmiyay koortan aadka u qiimaha badan وجود aadka u qurux badan leeyahay joogan in badanna waxaan ku faraxsanahay runtii inaan ka soo qayb galo xafladan lagu maamuusayo kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan jiilkan aadka u qurux badan leh ee sida wanaagsan runtii loo soo agaasimay ee sida fiican waxa weeyaan marka loo diyaariyay waxa weeyaan waa dadkii nabadali lahaa berritayna badali lahaa سلام الله نهدي به إليكم سلام عاطر من أعماق قلوبنا فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا لمدير مدرستنا أهلا وسهلا لمعلمينا أهلا وسهلا لسمراء جيل المستقبل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وجيشنا باسل لا يخشى عدوهم يردعوا في الحروب صوماليا بلادنا نحبها نعشقها بالأرواح نفتيها القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الله ربي لا ينزلي عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم انت فرحسنا آد بانو لفرحسنا هاي والدك فرحسنا يا أولاد فرحسنا آد يا آد بانو لفرحسنا هاي إلهي وحن كرجينينا دار الحكمة إن إذين نقطر وجهله هداتهين يا Somaliland ودنبا معلمين لابد يدو
arday lagu daydo. gabagabadiina waxaa ardayda dhamaysatay xifdiga quraanka kariimka ah lagu guddoonsiiyey shahaadooyin. waa Cilmi Maxamed Jaamac, fogaan aragga xorta Star TV magaalada Togwajaale.